وحنا خنيسة حقيقة الحب وحنوصل جيدنا ولكن أبو بكر صديق محمد فليتفضل أبو. ما شاء الله. جزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، mahad oo dhan waxay u sugnaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala. allahaasoo nagu kulmiyey guri ka mid ah guryihiisa. waa inaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u mahad celinaa. midda labaad, waxaan jeclahay inaad iga gidoontaan salaan qaali ah, salaan ka timid walaal idin jecel, salaan sida tajacayl, naxariis iyo nabadgelyo, salaan ka culus buuraha Switzerland, ka cad caanaha Holland, salaan ka carab badan barfuunka, salaanta islaamka, salaan uu nebiga sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay isku salaama waad isjeclaanaysaan, salaan qofka haddaad ku salaantid aad ku helaysid 30 ajar, salaanta ahluljanna. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. naxariis iyo nabadgelyo korkiina ha ahaato. walaalayaal, intaa kadib waxaan u mahad celinayaa waxay tahay dhammaan walaalaha sabab u ahaa inay muxaadaradan hirgasho. aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. midda saddexaad waxaan ka sheekayn doonaa waxay tahay ciwaan cajiib ah, ciwaankaasoo lagu magacaabo jacaylka dhabta ah. yaa salaam, jacaylka dhabta ah sidee ayaa lagu gartaa? sideen baan ku garanayaa qofkan ama qoftaas in ay jeceshahay, in ay jacaylkeeda ka timid qalbiga oo ay kasoo fakirtay jacaylkaas oo aanan sidan khiyaano iyo wix la mid ah? sidee ayaa jacaylkaas ooga dhigaa jacayl qaali uu ka yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, jacayl noo hogaamisa waddada jannada? iyo sidoo kale waxaan u safri doonaa insha allahu tacaala guriga jacaylka iyo macallinka jacaylka, macallinka romantiga nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo khadiija, caaisha. meesha ayaan dhex dabaalaneynaa insha allahu tacaala. waxaa jeclaalaha waxay tahay walaalaha in quluubtiina ay ii soo jeedisaan si aan u raacno, aan u aadno adduunkaas jacaylka uu macallinka yahay, hogaamiye ka yahay nebigeeni sala allahu calayhi wasalam. maxaa ka qurux badan jacayl? laba mid ayaan ka hadli doonaa marka ugu horeeya, oo ah inta aanan fahmin jacaylka dhabtaa waxay tahay waa inaan isla fahnaa jacayl maxay tahay horta iyo goorme ayay imaadaa. kadib ayaan sharaxi doonaa insha allahu tacaala jacaylka dhabta ah, culummada waxay ku tilmaameen iyo wixii la mid ah, iyo waxyaabaha lagu garto, calaamadooyinka saxda ah lagu garto ayaan insha allahu tacaala sharaxi doonaa. muxaadaradan inaan diyaaray waxay u qaadatay hal isbuuc waan fekeray, anoo ka fekeray waa maxay jacayl, maxay tahay jacayl, waan ku jeclay, maxaa laga wadaa I love you, uxibuk, yani maxaa laga wadaa jacaylka? waxaan jeclaanaa waxay ta marka ugu horaya in su-aasha insha allahu tacaala aniga iyo dhammaan waa ka wada jawaabaynaa biidni illaahi subxaanahu wa tacaala. su-aal ayaa idin weydiinaya, su-aashaas oo ah waa maxay jacayl? yaa ka jawaabay? dhalinyara meeshan waxaa jooga khatara maasha allah. haye gentleman yaa khatare ka jawaabay su-aashaas, waa maxay jacayl? maxaa laga wadaa? jacayl waa dareen, yaa dhah adaa haye jacayl waa dareen ka dhaxeeya laba qofood waxaana lagu sugaa calafka. wada waxay tahay jacayl waa dareen ka dhaxeeya laba qof waxaana lagu sugaa waxay tahay calafka. haye yaa kale haye jacayl waa kan hooyo ay kugu dhashay. haye ya salaam, jacaylka waa kalsooni ka dhexeeya labada qofood. haye wax ka duwan mala sax? haye cajiib, jacaylku waa dareen oo aad u jecesha alla dartii qofka. okay, waa isla fiirinaynaa marka waa maxay jacayl. jacayl sidaa ognahay waa waxa ugu quruxda badan. ay wiilkaas yarka gacan taagan jacayl maxaa waaye? هذا قف جعشة سحوة سحوة هذا قف جعشة وجعشة سحوة ما شاء دي نصيبة عنقة سحوة الحق ما دام شلي. أوكي جعيل محيتها جعيل سيدا أقنا هاي ووح أقو قوح البنان لا يستصح ووح أقو أذك لكسبضه ووح أقو حنون كبنان لا واي صح dadka jacaylka waaye ala weydiina waa wax ugu xanuunka badan la waaye sax qof baa jacasha dukaad taga xanuun waaye
اوكي جعيل ودرين سيدا اوغنا halkee laga dareema qalbiga gacmaha ma laga dareema may lugaha ma laga dareema may qalbiga laga dareema waa amal qalbi ah oo xub yani jacaylkaas qalbiga laga dareema walaalayaal aniga buugaag badan ayaan aqriyay hadallo badan ayaan aqriyay culamaa nafs culimada nafsada tilmaamay jacaylku waxay tahay iyo waxaas ku takhasusdan waan aqriyay waan baaray jacayl maxay tahay ayaan baaray waxaa ogaaday waxay tahay jacayl waa waxa adiga u taqaanid jacayl ayaa jacayl ah laga yaabaa istaayid maxaa sheegaysaa Abubakar ana shaqay gadaal laga fahmaa insha Allah aniga maalin saddex gabar ayaa soo wacday hal maalin gudihiisa saddex gabdhood maalintaas la wada jacayl wax laga wada yasmiin iyo ibtisaama iyo nimca subaxdii snap chat gabar soo wacday waxay tahay wiil ayaa kala tagnay sababtoo ay ma jecla waxaan dhahay marka maxaa ka wadaa ima jecla ii fasirko waxay dhahay sababtoo ay ma daryeelo yasmiin saasay dhahay haddana galabtii la joogay anuu telefonka yani caadi whatsapp ana ku jira gabar kale soo wacday ibtisaama waxay tahay aniga ninkeeda dhibaato waxaas jirto marka waxaan ogaaday waxay tahay inuusan jeclaan waxaana maxaa ka wadaa inuusan jeclaan waxay dhahday mid ugu ima dareel ma dhino tan waxay dhahday yani ma ifahmaayabo marka u sheekiinay meel kale uu joogaa ma ifahmaa ninkan yani ha ma ifahmaayab ninkan haddana habeenkuu kale joogay nimcay soo wacday isla maalintii leeyahay su-aashay weydiisay waxay tahay sideen ku ogaa kara qofka inuu si dhab ii jecel yani shakiyaan ka qabaa waxaana shakigaas inaa ka qabtay sidee ku timid waxay dhahay sababtoo ah ninkan kalsooni ima siinaayo maqob gabdho kale iga sheekeeyaa mid waxay dhahday daryaalan waaye sababtoo ah ima jecla mid kale waxay dhahday ima fahmayso marka ima jecla mid kalena waxay dhahday yani mid ugu dambeeya mid kalena waxay dhahay kalsooni ima sii sababtoo ima jecla marka jacayl waa wax adiga aad taqaan jacayl qofka waxa laga yaabaa inuu u yaqaano yani daryaal hadduu daryaalkaas u waay jacayl waay marka daryaal aad u taqaanaa jacaylda waa inaad daryaal aagaadaysaa marka gaba kula fahmayso jacayl waa eray oo keliya I love you eray le waay macnaha jacaylka yaa mataqaana anaga waa dadka jacayl macno u sameynaya jacayl waa eray oo keliya anigii adiga macnaha jacaylka walaalayaal waa nolol bal nolosha ayuu nolol u yahay jacaylka waa quruxda noloshan waa iftiinka maalinta mugdiga habeenkii weeyaan jacayl la'aan janno lama gelaayo jacayl la'aan janno lama gelaayo abubakar maxaa leedahay hadda cumar wuxuu noo tilmaamay waxay tahay waddada jannada ayuu noo tilmaamay sax qof aanan qalbigiisa aysan ku jirin jacayl janno ma gelaayo maxaa sheegaysa abubakar nebi sal slam ayaa noo tilmaamay nebiga wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu janno ma gelaysaan ilaa ilaahay aad ka rumaysaan maahane walaa tu'minuu xataa taxaabbuu ilaahayna ma rumaynaysaan iimaan dhabna heli maysaan ilaa aad isku jeclaataan ilaa ilaah subxana wa taala ku jeclaataan awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum miyaan idiin sheegaa shay haddaad samaysaan aad isku jeclaanaysaan salaanta faafiya yacni waxay ku tusinaysaa waxay tahay jacaylka inay ka mid tahay qayb ka mid ah diinta walaalayaal jacaylka waa waxa qofka dhaqaajiya ibn aadamka culimadu waxay tilmaamaan waxay tahay laba waxa dhaqaajiya fikrad ayaa dhaqaajisa iyo dareen cabsi ahaato farxad ha ahaato jacayl ha ahaato iyo wix la mid ah gabar amerikaana lagu magacaabo Helen Fisher ayaa baaritaan cajiib ay samaysay oo ah xiriirka u dhaxeeya jacaylkii maskaxda ibn aadamka ya saameynta ay ku sameynayso markuu wax jeclaado waxay leedahay waxay tahay jacaylkaas awood wuxuu leeyahay يعني مكا قف أجعلاتي قبل أجعل قبل نقول كي أجعلاته جعيل كاس أو قلبك لقى الدغيمايو مسكح ذا يوصل قد بنايا مسكح الدغيمايو وحد في فرعوني هي نشاط هي فرحت وحد أكيد قف على هذا فرحة بس كقصة صوب ماله يعني قف على هذا لسه إيو سيدو كلا جعيل كاس وحو أو ذا وحيته هاي إن وكهر تجو ذلك إيو عاجزك habeen laga yaabaa inaad soo jeedid adigoo caajis iyo daal dareemaynin sababtoo ah jacayl ku hayo yani awoodda uu leeyahay jacaylkaas waa waxa qofka dhaqaajiya ummad dhan ayuu dhaqaajiyaa yani awoodda uu leeyahay xataa waxay leedahay waxaa laga yaabaa qofka inuu u dhinto jacaylkaas
awoodda ay leedahay jacaylkaas qofka saamaynta qalbigiisa ay ku samaynayso midka labaad qofka waan ku jeclahay markuu dhahayo dadka badana hadda dhalinyarteena oo aniga aan ka mid ahay waxyaabaha qalad loo fahmo waxay tahay jacayl waxaa u fahanay dareen oo keliya bas dareen gabaraan jecla waxaa laga wadaa daraad isbuuc ka hor ayaa muxaadara ka jeedinayay gabdhahan weydii jacayl maxay tahay waxay dhahan waxay tahay jacayl dareen waa kadib waxaana qof markuu ku dhahayo waan ku jecla waxaa laga wadaa miya dareena ku haya haade ay dhahday haddaa qof aanan dareen ku hayn maxaa u jeclaane yani dareen oo waxay ka wadaa waxay tahay jacayl oo wix la mid ah marka badanaa dhalinyarta waxyaaba qalad ay u fahmeen waxaa ka mid ah waxay tahay jacaylku waxay u qaateen inuu yahay oo keliya dareen yani dareen oo keliya daryeelna ma laha jacaylkaas daryeelna ma aha mid qalbi ka soo go'day xitaa waxaad arkaysaa waxay tahay wiili gabar markay ay hadlaayeen waxay ka sheekaysanayaan waxay tahay waxyaaba dareen ah bis waa ku jecla anna waa ku jecla habeenkii ba seexda ma socdo markaa socdo saas waa marka adaa ku arka miyaarada kaa dhaca hadalladaas lagu sheekaysto oo qurux badan qofka soo jiidanaya qofka wuxuu rabaa waxay tahay qofka kale qalbiga inuu soo jiito lagama hadlaba maxaa jecesha adiga maxaa kaa xanaajiya maxaa iga sheekeey waa kuma yaasmiin aan kaaga sheekeey waa kuma abubakar yani sidaa oo kale in qofka yani aad isbartid marka waan ku jecla marka qofka dhahay waxaa laga wadaa waxay tahay waxaa jecesha ayaan jeclay waan ku jecla qofka markuu dhahay waxaa laga wadaa waxay tahay waxba nacab tahay ma nacbi waa shay muhiima su-aasha labaad jacaylkaas goormo ayuu yimaadaa ayo dada yaa ka jawaabaya jacaylkaas goormo ayuu yimaadaa ayo yaa shukaansaday anaga waa shukaansaday ayo jacaylkaas goormo ayuu yimaadaa waa noocyo badan ani jecel gabar iyo wiil la gaadho aragti yani waxaa ka hadlaya guur ka hor muu yimaada mas kadib ani aragti labada baa yimaada okay aye kadib uu imaanaa jacayl aye yaa kale aye laba sifo midna ka hor midna kadib aye yaa kale صح سؤال ninkan su'aalna weydinaa adiga gabar ku jeclaa ma dhahay انت هذا قوسك وداعد معك بما وش يس عمت ودع انا اسكا خير ودع صعبه ودع laakiin waa jira mahal boosad ilaa ka dhigo يا شيخ اولاد كذبوا لماذا يعني حتى ابوك كذب معها اولاد كذب واحد لا كودا ما فاهم اي ياك الجواب هاي اوكي انا قاس ياك روح ما جعلك سؤال لما لا اوكي ولا ليال سؤال حتى اصحابتي قال سعودت انك انستغرام ويدي هذا عايز جعلك قوموا ايو ماذا jacaylka instagram weydiiya asxaabta instagram waxaa ku jirta waxay tahay 119,000 qof aa weydiiyey inta daabatay videoga su-aashaas aa weydiinayo waxay ku jawaabaan waxay tahay 36 jacaylka ka hor uu yimaada gabaha waxay dhahay su-aasha khaldanba jacaylka ma ku dhahay gooma imaanaya ku imaanaya alla dadka yani fikradaha kala duwan dhiibanayeen qaarna waxay dhahay 64% waxay dhahay jacaylka kadib uu yimaada diinta aw imaana kadib nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay walaalayaal indheheena waan ka laaban karnaa waxyaabaha aanan rabin inaan arkin sax laakiin qalbigaaga ma ka laaban kartaa waxyaabaha aanan rabin inaad dareentid may jacaylka sabab yani sabab xitaa ma laha waxaa laga yaabaa qof inaad jeclaad adoo u ogeyn sababta u jeclaad jacaylka kuma weydiisanayo xilligu imaanayo jacaylka buuka ka muu yimaad mise buuka kadib xadiis waxaa jirta ibn maaja uu sawiranayo uuna saxiixinaya sheekh moxamed bin naasir addiin alalbani uu nabi sal ly slam uu leeyahay culimada sida ku fasireen in daawada labada qof isjecel ay tahay guur maxaa nabi sal ly slam uu qiray buuka ka hor inay hee jacayl imaan karta sax daawada laba qof isjecel labadan qof way isjeclaadeen daawo maxaa u ah inay isguursadaan jacaylka goomuu yimaadaa buuka ka hor wuu imaan karaa buuka kadibna wuu imaan karaa صح يعني اوكي جعلك سيدو كل وحو يمادا waxay tahay qofka markuu wuxuu haayo uu bixiyo dadka badan waxay u maleeyaan waxay tahay jacaylka inay tahay wax qofka la siinayo in asal lagu dhawa ku jecla may
ina adi waxa bixisid qofka aad daryeeshid aad ka fikirtid aad ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhawaysid taas ayaa ah jacayl maalina waxaa dhaca waxay tahay nina malaay badka uu ka qaatay kadibna uu kasoo dabay markuu kasoo dabo kadib malaaygu wuu kariyey malaayga markuu kariyey kadib wuu cunay wiil yaraa meesha joog su-aali weydiiyey wuxuu ku yiri aabow adiga malaayga wiil ma aanan oday waa uu weydiiyey wuxuu ku yiri waxay tahay aabow malaayga ma jecesha wuxuu ku yiri waxay tahay malaayga waa jecel haddaanan jeclaan lahayn ma cuni lahaynba wuxuu ku yiri may ma jeclid nafsadaada jecesha هذا ملاك أجعلها بديسة كل عفلات صح نفس هذا جعشة تذكرنا حملة وحيد النبي صلى الله عليه وسلم حديث وحليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متكين إيمان نبه لما إلا وحو جعلها ولا الكيس ولا جعلها جعل وإنا بحسا حتى وحكت ماذا وحيد إنا واحد بحسد علمنا بس كوافقين إنا وحا هيسد بحسد وقت به جعل به دغيال به عافيمات به لعكت به ساقو يوحي لمتاه مكة بحسد أيا الدريميسا حقيقة جعيل أوكي جعيلك والله ليال جعيلك بوك وحاجة لي غادو 5 love language شن تلوقضات جعيلك يعني شن فيلا نل كان وحباش صح فيلا شن فيلو شيء أو جعيلك كينا فكرة وحاجته هلما فكرة وحاجته نين لي غادو ستيفن كافي وحو كان وحده فكرة لوف بانج وحلي غادو لوف بانجي العكت مان بانجي كلوات لوف بانجي جعيلك ما حلقة ولا قلبي أنا نجمت بانجي أيا كفران قفك كلا يوفرانيا بانجي ما حلقة سمايا لعق أيا لو كيت صح وزيادة لعقت هذاك قالتنا هو صورة صح جعيل كان واسده وكلا يوليا قفك مكة قف أجعلات بنجي أي قلبي وكفر معه بنجي يسمع والبو دغيال نحريس هذا الوناكسن كالكعيل يوحى صدي لقصية جعيل بزيادة لكن هدي بلان خف كعبه وبين وهو شيء وإحنا متهوس وزيادة خف أنا مت أساس وايب بنجي يا قلبي كفران هذا كله واحد على واحد هاي نن أيا حاسب بوسدي ذلك تركيا هاد حاسب بوسدي كده بحقول هذا حبيبي أنا وحاربة وحيت هاي أنا أديك تدبرة إن أدنو تشاينا هونغ كونغ هوتيل 5 ستار إن أدنو تشاينا إن أدنو سمعش أنا وأقل قلبي دقيق ما تمام هونغ كونغ شنو ميا إتوا هونغ كونغ تشاينا مو لا إيه هونغ كونغ وايا تشاينا ماشي تدبرة مك ماشي آذن تدبرة مك ماشي آذن كدب وحاد على وحيد هوتيل كمكي آذن حاسك أيضا يعني ترجل فوليسا وين علي مكو أك أيضا دعس حكوا يوم دخنا حبيبتي هدعن مكة أك أيضا دعي وحوم لي أدوك أنا دعية هذه لو قوم تلقني سعود دعتان إنه قاعد لم يقدر تكون واقعا كذب حدا وعيت هل سنة إسقبل هل سنة كذب قبل وحكوا تري وحصوح حصو سنة مالنتي أو أني أديك أسقو سنة أقل قلنا صوح حصو سنة بس الهوتيل كي أدينا هونغ كونغ ويبحن isla hotelkii aadan way heleen hotelka markii aadan kadib haddana qisadii aa dhacday ayadoo qabta inay tarajada fuusho way dhacday marka waa wuxuu ku yiri adi jinni ma qabtaa iska fiiri dhacdhacita ma qabtaa bangigii yaa nusqaamay xitaa waxaa dhiiqada waxay tahay laba qof isqabay mar walba ninka wuxuu ku dhigi jiray waxay tahay gabadha hadal qurux badan oo soo jiidanaysa kadib marka ninka xajkiyo aaday حاجك ما كوكا صلاة كدب نكا هذا في عنا ما دهوي كدب يحكوا هذا أديك حاجك تان أديك وهذا قوس بدنا ليس محاوى وحول أنا قدم بيجا وكتوبت كان كل بدنا دم بيجا وكتوبت كان ولا ليال ويل أيا هو يدي سؤال ويدي يعني وحكوا هويو سيدبان وهلكرا قبل صالحات وناكسم إله سبحانه وتعالى كعب سنيسا ستة يجعل waxay ku tirim taqaana wiilkeygiiyo waxaqaadin yani gabadh fiican iyo taxaqaadin adiga fiicnow markaas ayaad helaysaa gabadh fiican waxaa arkaysaa mataqaanaa hadda qof waxaad arkaysaa salaad ma tukado maanta oo dhan banaanka iyo sheeko ku mashquulsan yahay kadibna wuxuu rabaa waxay tahay inuu helo gabadh sida khadiija oo kale ah haddaa rabtid inaa heshid gabadh sida khadiija iyo caaisha oo kale waa ina adigan u dhaqantaa sida nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam
وشيء يعني مهمة تلفون كان نحيا ما أنت حد وحشرح دونا وحيتها جعيل كتبتها وحيابها لو قرت وحنجعلها وحيتها هاي شن دقيقة لدي 10 دقيقة لدي 10 دقيقة لدي ولا ريال هذا لا يرجع جعلها إنا إلى دي ستان قفك سيدا دبتا كو جعل وحو دوين يا إلهي سبحانه وتعالى وحو ليه هاي كالي أن قرآنك أقسنا وحو كو ديغلينا يا سيدا آخرة أدو شقيسان لهيت قعنتا لا يقبنا يا وحو ليه هاي كالي صلاة أن تكنا قفك سيدا دبتا كو جعل أم ستان كاجا أيو فهم يا أنت آذن هادلينكو أدونك وحاجة وحيتها دت أدوك بقلال أغيكو هادلي أنا كفهمين دتنا فهم يا أم ستان كاجا qofka sida dhabta ah ku jecel boqolaal sheek ayuu kaaga sheekeynaya si uu adiga kula sheekaysto qofka sida dhabta ah ku jecel wuxuu u xiisayaa codkaaga aragaaga qosolkaaga sheekadaada iyo kaftankaaga qofka sida dhabta ah ku jecel wuxuu kula fadhiyayaa saacadooyin asigoo u maleeya daqiiqadooyin qofka sida dhabta ah ku jecel farxadaada waa farxadiisa marka aad faraxsan tahay u maleynayaa adduunka oo dhan oo faraxsan qofka sida dhabta ah ku jecel murugtaada waa murugtiisa dhibaatadaadana waa dhibaatadiisa qofka sida dhabta ah ku jecel hadday jirto boqolaal sabab aad ku kala tegi kartaan wuxuu raadinayaa waxay tahay hal sabab aad ku kala joogi kartaan qofka sida dhabta ah ku jecel haddaad waddan aad ka tagto wuxuu maleynayaa waddankii oo dhan oo tegay qofka sida dhabta ah ku jecel elintaada waa elintiisa inta aadan ilmeeko ayuu ilmeynayaa marka aad ilmeynaysid ayuu maleynayaa adduunka oo dhan oo ilmeynaya qofka sida dhabta ah ku jecel dadka oo dhan uma jeedo ilaa adiga maahane qofka sida dhabta ah ku jecel caafimaadkaaga waa caafimaadkiisa marka aad dheragta ayuu dhergayaa mar walbana xaaladahaada ayuu ku weydiinayaa qofka sida dhabta ah ku jecel wuxuu kaa fakerayaa adigoo aanan ogeyn qofka sida dhabta ah ku jecel wanaagaaga ayuu arkayaa marka aad xanaaqsan tahay qofka sida dhabta ah ku jecel wuxuu ku siinayaa kalsooni iyo wixii la mid tahay oo dhan dadka oo dhan markay kaa tagaanna asiga uu kula joogayaa maalin ayaa waxaa dhacday waxay tahay nina yani xaasa waxay weydiisay ninkeeda waxay ku dhahday xabiibi aniga haddaan xanuunsado meeqa mar ayaa isoo booqanaysaa wuxuu ku yiri waxay tahay hal mar lagu soo booqanaya way nacday ya hal mar ma soo booqanaya wuxuu ku yiri haa بس وانا على كاي كذب وحيقول كذب وحوي وحيته حبيبتي ما فهمت وحن كولا هل ما يكون معنا يا منا كاتجا يا لقى والله تاسع جعيله اوكي هذا شرح دونا مكه جعيل كتبت وحيابا لو قلت قال لي وقد هذا سوق هذا خط قبل على بار قلت انا كبارني ما ها نوخر بارتان سمي انت قف حنون سمك وقوي ما محاسمين هذه الدكتوره داتا ما قوه وحاغالينا وحيت حنونك قف كان هاي ما قبطنا ولا بارد جايل كتب ميكتا مس بن بن واي بوك بوك واي اوكي متك ugu horeeya number 1 waxay tahay calaamada lagu garto qofka sida dhabta ah ku jecel alla ayuu ku dhaweenayaa meel ku qota kaasa muhiim ah qofka sida dhabta ah ku jecel mar walba ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ku dhaweynaa jacaylka ilaahay ayaa asal ah jacaylkiinana waxay fududeynaysaa waxay tahay jacaylkiina mar walba jacaylka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay idin ziyaadinaysaa wanaaga ayuu kugu baraarujinayaa xumaanta yani ayuu kaa reebayaa jannada xaggeeda ayuu ku wadaya qur'aanka iyo salaada iyo cibaadada ayaa mar walba kugu dhiirigelinaya waa shay muhiim ah جعيل والبكوب بالله شيء حرام يعني وحقوق جبوا وحيته وأكن خلاف إيه وحلا بدا جعيلك وحلا ولسا وحيته والله كعبسي مهم كو مثل ما وحيته فهم قفك فهم هي ما كتبش واحد السيدة بانكو جرنا يقفك إنه فهم هاي مثل وجورة وحيته هاي قف كان وكل سنة وهذا ليس وكل سنة مثل اللبات wuxuu weydiina waxay tahay su'aal ku haboon sheekadaada ka soo qaad adiga waxa ka hadlaysaa waxay tahay waxa ka hadlaysaa hal arina ka hadlaysaa kuma weydiinaysa su'aal ka baxsan arintaas maxaa laga wadaa sheekadaada iguma socdo iga khalay sax laga wadaa yani kuma fahma qofka meesha ka hadlaysid iyo ma baxaakaysa waxay tahay asigoo ka baxbaxay sheekadaada أدي واحد كادو سوى واحد سؤال ويديسي أم سؤال ويديسي أيضا سؤال كله كوجود بالطبقة مالك لا أدي خفك كم فهم ويبغى حكي هذا الشيء متى استحد الكسوف فيه ما كان هذا الشيء خف
asigana muhiim waa mid kale waxay tahay waxaa la waxay tahay mararka qaarkiis kuma fahmaya ilaa laba qof maahane qofku ugu horeeya waxay tahay qof soo maray xaaladda adiga ah soo martay yani xaaladda oo xaaladdaas qof soo maray iyo qof wax walba adiga ku arka adduunka dhan adiga ku arka labadaas qof ku fahmaya marka dadka dhan kuma fahmaya ilaa labadaas qof maahane midka saddexaad waxay tahay daryeel xanaan waxaa la isweydiiyey waxay tahay xub maxaa laga wadaa xa iyo ba xada waxay tahay waa xanaan xanaan af soomaalina waa daryeel in qofka ama gabadha ay ku daryeesho ama adiga inaad daryeeshid sidee baa ku garana qofka inuu daryeelayo waxaa ku garanaysaa waxay tahay waa qof danahaaga ka fakerayo waxa ku wanaagsan wax adiga ku fiican yahay waxbarashadaada ha ahaato shaqadaada ha ahaato dhinac walba wuu kaa fakeraya ko mid labaad waxay tahay marka wax u sheegtid dib ayuu ku weydiina ama dib ayay ku weydiinaysaa maanta waxay tahay imtixaan aan leeyahay berito haddaa isla hadashaan imtixaanka sidee waa ay ku dheedahay maxaa laga wadaa marka yacni qofkan qalbigeeda way ku jirtay muhiim ayay u tahay inay ogaato laakiin adi maanta waxaa dhahday imtixaan aan leeyahay hadhowna haddaysan ku weydiinba hal mar way iloobi kartaa laba mar laakiin mar walba ma iloobi karto okay waa muhiim midka kalena waxay tahay wax walba aad jeceshahay yacni ay samaynaysa adigoo aadan ogeyn kasoo qaad adiga waxaad jeceshahay waxay tahay arrimaa jeceshahay adigoo aadan ogeyn ayay kuu samaynay adigoo aadan ogeyn marka aragtidna yani si lama filaan saddex midka afraad waxay tahay way ku qiimeynaysaa ama wuu ku qiimeynaya fikraddaada iyo adiga qofka wuu ku qiimeyna qiimo fikradda aad soo jeedaysid xitaa asi hadduu fikrad u haayo fikraddaada ayaa kala muhiimsan tiisa meel u dhiga taadaa ka muhiimsan qofku qiimeyna ku qadarinayo wuxuu ku tusaa waxay tahay inaad tahay adiga qof muhiim ah inaad gabdhaha adduunka oo dhan aad ka duwan tahay ama wiilasha adduunka oo dhan inaad ka duwan tahay nebiga sala allahu calayhi wasalam marka oo u yimid jibriila u yimid gurayga wuxuu ku soo laabtay waxay marka ugu horeey oo la dhahay iqra uu dhahay maa ana biqaari ani qof waxa qiimihi oo mar labaad lagu akhri kadib asigoo orday gurigiisu u laabta asoo naxsan oo walwalsan gurigiisu u orday guri markuu aaday kadib wuxuu ku yidhi khadiija dabool kadib khadiija waxay ogaatay inay wax jirto habeenayda wanaagsan fiira jacaylka dhabta fiira maxay samaysa khadiija waxay tustay waxay tahay inuu nebiga uu yahay yani qof ka duwan dadka kale in uusan la kulmaynin wax shar iyo wix la mid wax dhibaato in uusan la kulmayn waxay ku tiri adiga dariska ayaad xiriirisaa masaakiinta waad u gargaartaa yani waxay tustay inuu yahay qof qiimo badan waxay tahay inuu yahay qof ka duwan dadka kale inuu yahay qof qiimo leh qof sharaf leh qof naxariis badan isla markii waxay sheegtay waxay sifaadkiisa yani qofka sida dhabta markuu kuu jecel yahay mar walba xaalada adag xitaa quruxdaadu ku tusaa marka mid haddaa sheegaya marka xanaaqsantaa ayuu arkaa quruxdaadu mar qofka sida dhabta kuu jecel okay midka kale waxay tahay qofka oo faraxsan oo mar walba dhoola cadeynaya qofka faraxsan oo mar walba dhoola cadeynaya markaad la hadlaysid hal daqiiqo dhiman oo bogsiina okay alla qoqotay faraxsan mid kale waxa dulqaad xad dhaafa dulqaad qofku ku sabra iyo sidoo kale hadal qurux badan ayuu kula hadlayaa mid kale waxay tahay ay way badan tahay laakiin hal mid ugu muhiimsan midaas oo ah jacaylka lagu dhiso ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ogol yahay ayaa ah jacaylka guulaysta jacaylka waxaa loo baahan yahay waxay tahay inay ku yani aakhiro ay kuugu hogaamiso laakiin jacaylka hadda jira waxay tahay marka gacantaada aan qabsaday ayaa ogaaday adduunka oo dhan anoo hayo oo kale ay la mid noqotay markaan ku fiiriy markaa soo socda waxaa malay kooxda soo socda yani ammaan iyo hadallo aanan jirin iyo unbay noqotay ani badanaa waxaan dhaha waxay tahay ha ii sheegin inaa jecesha itus afcaashi ayaa muhiim ah qofka siduu kula dhaqmaayo ficilka wanaagsan arrimahaas insha allahu tacaala ku dadaalno insha allahu tacaala ilaah subxaana wa tacaala aniga iyo idinkaba anaga dhigo kuwa mar walba wanaaga iyo khayrka iskula dardaarmo insha allahu tacaala barakum allahu fiikum wasalaam alaikum جزاك الله خير احسن الجزاء بارك الله فيك شيخ ابو بكر dadka maadaama qulubtooda